bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinma meel walba joogtaan is walba inoo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu weynaa suuqa maanta in la hadalhayo waxaana kamid ah naadiga Real Madrid oo markaan indha-inayaal u dirtay ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Manchester City Kevin De Bruyne. Real Madrid waxay markay damacsantahay xiddiga reer Belgium ee Kevin De Bruyne ee keentay garoonka Santiago Bernabeu maadaama kooxda Manchester City laga ganaxay 2 sanado ee tartanka Champions League siday maanta ay daabacayso majalada Mundo Deportivo ee ka socda dalka Isbaanishka. markaan Manchester City ciyaaryahankeeda Kevin De Bruyne wuxuu rabaa in uu tartanka Yurub ciyaaro taasoo fursad u ah kooxda kubadda cagta Real Madrid maadaama Real Madrid ay qayb ka tahay kooxaha laakiin Man City 2 sano laga ganaxay tartankaasi. shaqooyin kale waxaa kamid ah Chelsea ayaa markaan wadahadal la furtay ciyaaraha Jadon Sancho. Chelsea ayaa lagu soo wareeyay wadahadal la furtay ciyaaraha Jadon Sancho kaasoo kamid ah kooxda Borussia Dortmund. 19 sano jirkaan kooxda Borussia Dortmund qandaraaskiisa ayaa ka dhici doona sanada 2020 oo imika aan ku guda jirno dhamaadkeeda laakiinse waxaa markaan Chelsea ay loola adag kala kulmaysaa kooxaha Manchester United iyo Liverpool oo aad u xiiseynaya xiddiga reer England ee Jadon Sancho. sida daawada France Football Chelsea ayaa markaan ku qancinaysa xiddiga reer England inay keento garoonka Stamford Bridge ay ku ciyaarto kooxdani. wararka lagu weyn suuqa maanta waxaa kamid ah Pep Guardiola macalinka ee Manchester City ayaa markaa la soo warinay inuu baaqi ku sii ahaan doono garoonka Etihad Stadium. maamulka sare ee Manchester City ayaa sidaas yeelay maadaama labada kooxdan laga ganaxay 2 sanado tartanka xiisaha badan UEFA Champions League Mirror ayaana maanta sheekadaas qoraysa. Alexander Del Piero xilligii hore kooxda Juventus ayaa markaa aaminsan Pep Guardiola inuu ku wanaagsan yahay shaqada kooxda kubadda cagta ee Juventus badel loogu dhigo Mauricio Sarri wuxuuna talo soo jeediyay in Pep Guardiola la keeno garoonka ay ku ciyaarto kooxda Juventus ee magaalada Turin. Sky Sports ayaana sheekadaasi sii daawacay. Raheem Sterling waxaa aad u baadigoobaysa kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay rabtay ciyaaryahan Raheem Sterling inay soo qaadato kaas oo u aragto inuu muhiim u yahay kooxda si lamid ah Sergio Kun Aguero ayana aad u daneynaysaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo dhankii wareeg maadaama badel ay ugu dhigto ciyaaryahan Karim Benzema ayaana shaqadii waajibaadkii loo idmaday uu qabsan waayay. wararka kale waaweyn ee maanta waxaa kamid ah Borussia Dortmund ayaa markaa aad u xiiseynaysa ciyaaraanka Real Sociedad ugu ciyaara Alexander Isak kaasoo weerarka ugu ciyaara xiddiga reer Swedish ayaana horyaalka La Ligaha 26 kulan uu ka soo muuqday wuxuu u dhaliyay sanadkan hanaan wanaagsan 70 milyan ayaa lagu qiimeeyay. Bundesliga kooxda ka dhisan Borussia Dortmund waxay ciyaaryahanka u aragtaa mid ku habboon garoonkeeda Signal Iduna Park ee ku ciyaarta Alexander Isak ayaana markaan aad u baadigoobaysa kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. wararka suuqa ugu weyn Asaka ay kuwaasi daawadayaal ahaayeen waad maasantiin daawashada warkeena haddii bartaan ku cusub subscribe like share hanaga ilaahay.